السلام عليكم هذا يوردك مع الأردنية وحن ما أنت هالكان كوكسو قد بنيا قيبتي لبعض حاني هني هذا يوردك مع الأردنية قيبتين لبعض وحن ما أنتو قال الدونا لبي هذا دعان كأردنية سومالي دنا سيقا سيوغرانيان لقي يابين مربضن لغو دي كسو دعضي سيبا لبدي سنة يودن بيي لبدا هيادو دوكالا هيادا العقتي أدونك IMF يبنجي أدونك IMF waxaa laga soo gaabiyay International Monetary Fund oo laga jeedo Soomaali ahaan hay'adda lacagta adduunka. Hay'adda lacagta adduunka waxaa la aasaasay dabayaaqadii dagaalkii labaad ee dunida. Sababta loo aasaasay ayaa lagu sheegay inay tahay caawinta dib u soo kabsashada dhaqaalaha adduunka, waxaana xarun u ah magaalada Washington ee dalka Mareykanka. xilligan aynu joogno waxa xubinka 189 watan. IMF ayaa shaqadeedu tahay inay dib u siiso wadamada dhaqaalahooda hooseeyo una baahneen dhaqaalahooda la kabo. haddaba waxay isweydiin mudan xagee bay ka helaan lacagta ay deemiyaan wadamada dhaqaala burburka ku dhacay. lacagahaas waxay ka helaan wadamada xubnaha ka inta badan waxaad maqashaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya wasiir Beele oo leh IMF-tu ma aha rag qosla shuruudaha ay noo direen qaar badan ayaan buuxinay si deentana la kaga cafiyo si xawaare lehna waan ku soconnaa oo in badan shaqadeena way amaaneen. Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Rashaad wuxuu ka yiri IMF sida ogsoontihiin IMF-tu waxaa loo diraa ayaga inay wadamada marka hore inflation ku kiciyaan inflation inay iyagu create gareeyaan oo wadamada ay u dejiyaan qawaaniinta ay u dejiyaan ay ku fuliyaan sida ay ugu tala galeen Indonesia dhaqaalaha lagu baabaashay Malaysia iyadoo raba afka dhulkan loo galiyo inuu iska xiray Mahathir Mohamad inuu iska xiray wadamadii Soomaaliya oo kaleetiyo Suudaan oo kaleetiyo sida loo sameeyay in inflation lagu kiciyo markii la gaarsiyo lacagtooda halkii dollar markii kumanaan la gaarsiyo la yiraahdo lacagtii adduunka suuqa waa ka baxday ma jiri doontaan raac anaga shuruudoodana waxa weeyaan shuruud adduunka ugu xun oo lagu baabiyo wadanka looga dhigo dukun daakun looga dhigo weeyaan iyaga la soo doonto markoo deynka inay siiyaan deynka markay siinayaan oo banki duwaliga uu sidaa ku fuliyo beeraha laga soo galo tacliinta laga soo galo waxa la saaraa fiqalka ugu xun oo wax ka bixi kara adduunka ilaahay aan la arkin iyo qoorta loo galiya yani wax maanta dulliga ka dhiga Masar oo intaasoo 80 milyan maanta gaartay dulliga ka dhigay oo diidi kara wax wala haday doonaan waxa weeyaan International Monetary Fund iyo banki duwali qardagiisa keliyata iyo qamadida Mareykanku ay siinayaan ayuu dhulka masaaridoo dhan uu yahay dhul zaraaciye sidaas loo gacmo duubay oo loo xiray afka dhulka in loo galay maalin walba oo inay kelmad yeelan dartood. World Bank bangiga adduunka waa urur caalami ah oo wadamada dhaqaalahooda liita ka caawiya inay hoos u dhigaan heerka faqriga. ujeedadooda ugu weyn ayay ku sheegeen inay tahay ciribtirka faqriga baahay. haddaba waxaa laga yaabaa inaan marar badan aad isweydiiso maxay ku kala duwan yihiin IMF iyo World Bank. jawaabta ayaa oranaysa kaliya waxay ku kala duwan yihiin waa ujeedooyinka iyo shaqada. IMF-ta waxay indhayn ku samaysaa xasilinta systemka lacageeda dunida halka World Bank-ga ujeedadiisu ay tahay ciribtirka faqriga. arrinta ugu weyn ee World Bank waxay ku taalaa Washington. bankiga duwali wadiifadiisu waxa weeye inuu dadka dawladaha lacag deena inay siiyaan duwal daciifa inay lacag deena iyo qarda siiyaan inay maanta ayagu maanta markaysa ay soo darsaan axwaasha wadamadaas ay ku sugan yihiin oo ay soo aqoonsadaan dacfiga meesha dhaqaalahooda oo laga kala baji karo inay soo ogaadaan ilaa ay markay soo ogaadaan ay meesha ka ogaadeen inuu daciif ka yahay ka soo kala bajiyaan marka waa soo kala jabinayaan marka waxa la hayaa wadamo ay madaxdooda siiyeen laaluush inay dhaqaalaha baabi'iyaan ay yiraahdeen intaasoo milyan aan ku siinayna hadda 1 bilyan aan ku siinayna laakiin baabi'i dhaqaalaha jooji sidaad ku wada ka jooji oo ku raaceen ayagu oo marka wadamadii dhaqaalahoodii dukun daakun laga soo dhigay nidaamkaas marka waxay u taxakumeen markaasi in ay inhiyaar ku ridaan ama baaba ay ku ridaan dhaqaalaha wadankaasi shuruud marka lacagtii deynka la siinayo shuruud qaasiya oo interest-gooda uu caali yahay aanay ka soo kaban karin inta cumrigooda ka hartay aanay wadanka ka soo kaban karin beerka loo galiyo mar haddii deyn lagu yeesho waa la duleystay deynka lagu leeyahana aanay marnaba bixi karinin waxa weeye bur weyn oo madaxa looga hayo ama jabal madaxa looga hayo buur oo markii rab lagu sii deyn karo in looga dhigo iyaga dhammaantood